qaar ka mid a odayaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka oo ka mid a beelaha dega Somaliland gaar ahaan gobolada Togdheer iyo Murudijeex oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay taageero mug iyo miisaan leh ay u muujiyeen murashaxa golaha deegaanka degmada Hargeysa Sidiiq Xasan Cali Kaahin ay geesta kale odayaashani ay fariin u direen mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID oo ay u soo jeediyeen in beel ahaan ay isku raaceen in musharaxa golaha deegaanka degmada Hargeysa oo kaliya ay soo saaraan waxaanay si weyn beeshani ay isaga fogeysay inaanay diyaar u ahayn in ay soo saaraan musharax u taagan golaha wakiilada ee gobolka Murudijeex iyagoona sheegay in musharaxooda kaliya uu yahay golaha deegaanka degmada Hargeysa madax dhaqameedkani oo amuurtaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan ka hadlayaa reerka beesha Xirsi Cismaan shirkan jiraayad waxay u qabatay golaha deegaanka Hargeysa oo uu u sharaxay Sidiiq Xasan Cali Kaahin waxaan codsanaynaa xusbiyada ay ninkaas xusbi ka sharaxan yahay inuu tixgelin u sameeyo beesha oo tixgeliyo kursiga uu qaatay uu soo dhajiyay oo aan wax carqalada cid kasto ku sameynaysa oo xusbigu beesha isagoo tixgeliyo waxaan kaloo la talinayaa cidda carqalada sameynaysa beesha kamidi in carqalada ka deyso oo beesha iyo magaca iyo karaamada reerka ilaaliso oo ay ku taageerto cidda fikirka taageersan oo ka kooban beesha Xirsi Cismaan haddaan nahay beesha Xirsi Cismaan golaha deegaanka degmada Hargeysa waxaan ku lahaan jirnay xildhibaan golo deegaan waxa ku fadhiya Khalid Deylaawe maantana waxaan soo sharaxnay xildhibaan Sidiiq Xasan Cali Kaahin oo ka sharaxan xisbiga UCID una sharaxan Hargeysa xildhibaanka baarlamaanka lagu baabiinayo xildhibaankii golaha deegaanka Hargeysa ku lahayn xildhibaan baarlamaan kuma lihin Hargeysa hana laga daayo oo caqabad bay ku tahay xildhibaanka golaha deegaanka ee noo soo bixi jiray wax codow ma hayno xildhibaanka Murudijeex ee baarlamaanka loo soo sharaxay laakiin waxaan cod u haynaa xildhibaanka golaha deegaanka ee degmada Hargeysa kursigan ku lahayn kaas maan cod u haynaa waxaan ka codsanaynaa xisbigu inuu noo tixgeliyo xildhibaanka ka sharaxan degmada Hargeysa ee golaha deegaanka Sidiiq Xasan Cali Kaahin haddii la carqaladeeyo xildhibaanka golaha deegaanka Hargeysa ku leenay yaana lagu soo hagaagin cod inaanu siino nin doonaya baarlamaan Murudijeex annagoo ka wakiila dadka caruurta iyo dumarka iyo mujtamaca meesha oo dhaqamada kuwa waaweyn waxa dadka iyaga saa ogol waan ku raacsan cid kale ma siinayaan waayo annagu dadku waxay doonayaan oo annagu aanu doonayno deegaanka ay doonayaan dadka iyagu sidaasaan haddaanu ka baydhno dadka iyagu way naga baydhayaan sidaasaan mujtamac isku raacsannahay golaha deegaanka waxa weeyaan halgan badan iyo dhib badan baan u soo marnay waa golo deegaan oo aanu ku leenay Hargeysa golaha deegaanka Hargeysa aanu ku leenay xasan ninka Sidiiq Xasan Cali Kaahin ayaa maanta musharax u ah reerku taageersan yahay waxaanu leenahay cidda maanta calqaladeynaysa ama burburinaysa waxba kama jiraan mana calqaladeyn karaan dhibaatana uma geysan karaan haddaanu nahay beesha Xirsi Cismaan waxaanu isku raacsannahay inaanu ku leenahay xubin golaha deegaan magaalada Hargeysa xubinta golaha deegaanka maanta waxaanu soo saarnay Sidiiq Xasan Cali Kaahin ciddii wax kale ka daba keentaa halka ugu celinayso iyadaa og halka ugu celinayso cod uga doonayso iyadaa og halkan waxaan ku leeyahay golo deegaan golo baarlamaanku maanu lahayn golaha baarlamaanka waxaan ku leenahay Togdheer dabad golo deegaan baan ku leenahay waxaan ugu fadhiyay Khalid Cabdi Cawad waxaana bedelay Sidiiq Xasan Cali Kaahin markaan waxaan leeyahay ninkii golo baarlamaan doonayo sidiidaada mooyaan dul dhacaaga hubso halkan waxa jooga odayaal sharaf mudan baa jooga magacooduna yahay abtirsiimo uu yahay Xirsi Cismaan waxaan raacsanayaa magaalada Hargeysa ee Murudijeex waxaanu ku lahayn golo deegaan baanu ku lahayn golaha deegaanka Khalid Cabdi Cawad ayaa ku fadhiyay markii hore maantana waxa uu sharaxan
sidiiq xasan cali kaahin waxa weeyaan golaha xirsi cismaan uu ku leeyahay waxa carqadeeya ee dhibaateeya ama ku gefa waxaanu leenahay waa ayaan darra weeye waanaanu isku raacsanay haddaanu xirsi cismaan nahay sidiiq wuxuu soo galay xisbiga ucud buu doortay xisbiyadii wuxuu doortay xisbiga ucud waanu ku taageersannahay dee maadaama uu doortay xisbiga qaranka ee ucud uu doortay waanu ku taageersannahay waxaanu u sheegaynaa xisbiga ucud guddoomiyaheeda iyo fulinteeda iyo madaxdeeda iyo indheergaradkeeda intaba waxaanu u sheegaynaa inaanu taageerada u hayno haddaanu beesha xirsi cismaan iyo wixii aanu soo jiidan karaba iyo wixii haddii ebeedbaya nagu sii taageerayaba inaanu la garab taagannahay golaha deegaanka xisbiga ucid waxaan u sheegaynaa oo ugu celcelinaynaa madaxdiisa guddoomiyaha golaha dhexe xoogayntiisa inaanu annagu u sharaxnay oo aanu isku raacsannahay mijo iyo madaxba aanu isku raacsannahay sidiiq xasan cali kaahin inaanu isku raacsannahay waxaanu leenahay xisbiga ucid cid kale kaasaa musharax noo ah waad aqbashay sida aad ku aqbashay ha ku socdo inuu noo sharaxan yahay sidiiq xasan cali kaahin oo cid kale noo sharaxan wixii kale waa beena iska ilaaliya maanta haddaan nahay beelweynta xirsi cismaan halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa musharax sidiiq xasan cali kaahin oon isku doorannay inaan xisbiga ucid iska soo sharaxo taasoon lahayn golo deegaan oon mid baarlamaan aan halkan nooga sharaxnayn kaasoo baarlamaankayagu yahay gobolka togdheer gobolka maroodi jeexna uuna noo oolin mid baarlamaan uuna noo oolin hal deegaan golo deegaan waan ku leenay maxamed cabdi qalinle telefishinka caalamiga bulsho hargeysa